بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولا ليال waxaan jeclayn inaan fariintan u dirno dhakhaatiirta kaalkaaliyayaashooda iyo dhammaan shaqaalaha waahiyaha kala duwan ee hay-adaha caafimaadka ee dalkeenna. walaalayaal waxaan ognahay inaad shaqooyinka la tacaalaysaan iyadoo habeen iyo dharaarba ay idinku habsatay dhibaatooyin iiga imanaya xagga maamulka iyo taliska. dhibaatooyinkaas waxaa ka mid a nolol qaaliya, awooddii waxiibsiga oo hoosaysa. waxaa kaloo ka mid a hakinta avansmayada iyo reklasmooyadii eed xaqa u lahaydeen. waxaa kaloo ka mid a cashuur culus oo dul taalla mishaarooyinka aad qaadataan. waxaa kaloo ka mid a briimyada oo idinku filayn iyo briim de gaardiga oo runtii bixistiisa aad la mudataan dhibaatooyin muddooyin aad u fara badan oo mararka qaarkood ku dhow 8 bilood iyo 9 bilood, iyadoo waqtiyada qaarkoodna si xaqdarraa iyo cadaalad darraa loo soo tuuro ama loo kala maroorsado. dhibaatooyinka waxaa ka mid a ku habsaday shaqaalaha, haddii ay dokteerada tahay, haddii ay anfermiyega tahay, haddii ay kaalkaaliyayaasha tahay, iyo dhammaan noocyada kala duwan ee shaqaalaha. dayactir la-aan, qalab la-aan, dawo la-aan, iyagoo la tacaalaya bukaanada aadka u fara badan ee runtii xadka dhaafay ee dalkeenna ay ku daweynayaan meelaha kala duwan. waxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka ku habsaday dhakhaatiirteenna iyo kaalkaaliyayaasheenna hanjabaad joogtaa, agajuglayn joogtaa, hayaanad joogtaa, iyadoo wax alla wixii qalab ay u baahnaayeen iyo wixii mooraal ay u baahnaayeen iyo wax alla wixii dawo ay u baahnaayeen ay hawshooda ku fulin lahaayeen inayna hayn. iyadoon ognahay dalkeenna inuu musuqmaasuq baahsan iyo xotooyada xoolaha dadweynaha ay ku habsatay. walaalayaal waxaa kaloo mushkiladaha ka mid a in badanka ay isku dhacaan dhakhaatiirta, kaalkaaliyayaashooda iyo ehelada ama qaraabada bukaanka, iyadoon ognahay dhakhaatiirteennu shaqaalahu inay haba yaraatee wax gamcaha ayna ugu jirin. dhibaatooyinka kale waxaa ka mid a ambulans la-aanta, gaaswaal la-aanta iyo baabuur la-aanta. waxaa kaloo ka mid a maamul aanan nidaamsanayn, baahsan, dusha laga keenay, runtii cadaadinaya, u cagajuglaynaya, eryaya, shaqada ka joojinaya dadkii u adeegayay bukaanka. walaalayaal waxaa nasiib darraa in dalkeenna ay ka jirto dhibaatooyin xagga caafimaadka. waan ognahay wasaaradda caafimaadku tan iyo 10 sano ama 40 sannadood wasiiradu waa isdaba maraan, laakiin xaaladdu isma beddisho. iminkana waa ay ka sii dartay oo dhib badan iyo cidhiidhi badan ayaa la sii galay, iyagoo dokteeradii iyo dhakhtarradii iyo anfirmiyadii iyo kaalkaaliyaashoodu ay yaaban yihiin dhibaatada dalkeenna ku habsatay. walaalayaal waxaa nasiib darro ah oo kale inay ka jirto dhakhtarrada qabyaalad, xigsiin iyo xatooyo xoolaha dadweynaha ay ka jirto. waxaa kaloo dhibaatooyinka ka mid a haysta shaqaalaheenna xagga dhakhaatiirta ama kaalkaaliyaasha ama dhammaan noocyada kala duwan ee shaqaalaha ee u adeega dadkeenna buka u adeega. ayaa waxaa kaloo ka mid a maamulka oo runtii baahsan, maamulka oo qabyaaladaysan, maamulka oo runtii tayo aanan lahayn, waayo faragelin joogtaa ayaa talisku uu ku hayaa, dadkana u cadaadiyo, u kala qaybiyo. taasina waxay dhib u keenaysaa, dhibaataynaysaa, xumaynaysaa tayadii caafimaadka. waxaan ognahay dadkeennu inay inta badan ay ku dhintaan daranyo iyo darxumo
taasina ay ugu wacnayn dhakhaatiirteenna iyo kaalkaaliyayaasheenna iyo shaqaalaheennu laakiin ay ugu wacan yihiin tayala'aanta xagga qalab la'aanta dawo la'aanta shaqaalaha oo isaguna aad ugu yar moraalkooga oo runtii hoos u yaalla walaalayaal shaqaalaha dhakhtarrada kaalkaaliyayaashooda dokteerada iyo shaqaalahoo dhanba waxaan u soo bandhigaynaa midnimadeenna isogaashaheenna wada shaqaynteenna walaalayaal waxaan idiin soo bandhigaynaa kow dib u dhaqaajinta xuquuqda avansmaanyada iyo reklasmoonyada laba baabi'inta cashuurta la duldhigo mishaarka saddex dib u eegidda iyo kordhinta briimyada afar bixinta briimyada oo lala bixiyo wakhtiyada mishaarku uu soo dhacayo ka hagartiridda agabka iyo qalabka iyo dawooyinka waxyaabaha dhan ay u baahan yihiin inay ku shaqeeyaan dokteeradu kaalkaaliyaashooda iyo shaqaaluhu joojinta faragelinta siyaasadeed ee talisku si joogta ah ugu hayo shaqaalaha iyo maamulka dhakhtarrada dalkeenna la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xatooyaha xoolaha dadweynaha la dagaalanka xaqdarrada lagu hayo si joogtaa dokteerada kaalkaaliyaashooda iyo shaqaalaha dhammaan dardargelinta iyo ixtiraamka madax bannaanida ururo u dooda xuquuqda shaqaalaha dhakhtarrada meelmarinta siyaasad qorshaysan hufan oo tayaysan kana fog madmadow qabyaalad iyo intervention insha allah waxaan guulaysanaynaa innaka oo midab innaka oo nabada waan nii ognahay dhibaatooyinkani haysad waan nii ognahay mushkiladaha aad ku jirtaan waan nii ognahay cadhada ciilka ni haysta waxaan rabnaa in dalkeenna uu isbedelu ka suuro galo innakoo mida innakoo nabada insha allahu tacaala waanan wada guulaysan doona